saddexaadna la siiyey maadaama muqdisho xidiid la nahay caasimadii saddexaad oo annaga isu caleema saarna madaxweynaha inuu naga aqbalaa rajeeyayna adagu ha iska ciyaane hirshabeelle caynka u dhuuji reer balcad waxaan rabaa 3 arrimood inaan ku ammaano ammaana dhowrka dalka Soomaaliya oo ogtihiin dhibaatadii iyo wixii ka dhacay iyo burburkii ka dhacay degmadii badbaadisay hantidii ummadda ayay naqatay oo warshadii Soomaaliya tagase waxaan rabnaa inaan xafladda wax yar ka iraado xafladda maanta xarig jarkeeda u joogno waa mashaariic laga fuliyay degmada Balcad mashaariic waaweyn ay ka mid tahay garoonka aan hadda joogno uu ka mid yahay isbitaalka isbitaalka guud ee degmada qaybo ka mid ay yihiin isgoolaad tiro badan ceelal mashaariic aanan soo koobi karin beero la falay dad agab la siiyey waxyaabo tiro badan oo degmada laga sameeyey boorka ka turjumaya inteeda badan marka mudanayaal iyo marweyn xafladda waa xaflad noocaas ah mashaariic laga furiyey degmada oo xarig jar oo u sameynaya madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle waxa kaloo jirto mashaariic dhagax dhig loo sameey doono ay sameynayso ay fulinayso hay'adda Islamic Relief International oo ayadana goobjoog nagala ah ayadana insha Allah way jiri doontaa waxaan rabaa inaan iraahdo mudanayaal iyo marweyn ku soo dhawaada degmada Balcad ku soo dhawaada gobolka Shabeellada Dhexe ku soo dhawaada gurigiinii caasimadii labaad ama caasimadii saddexaad hadii labaad iyo koowaad nagala qaad saddexaadna la siiyey maadaama muqdisho xidiid la nahay caasimadii saddexaad oo annaga isu caleema saarna madaxweynaha inuu naga aqbalaa rajeeyayna degmada Balcad ku soo dhawaada insha Allah waxaan leeyahay marka waxaan rabaa inaan iraahdo mudane madaxweyne wax walba oo naga dhaco wax walba oo qalade hadal ha ahaado baratakol ha ahaado iyo in nagala saamaxno waa rajeeyna insha Allah assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh madaxweynaha waxaan maanta ka codsahaynaa wadada u dhaxayso degmada Balcad iyo Jowhar oo aad u burbursan inuu codsigeeda laga qaato oo dhismaheedii iyo dhagax dhigeedii oo loo fududeeyo waxaan kaloo codsi diyaar u leeyahay waqtigan lagu yar awgiis maamul in loo sameeyo golo deegaan degmada Balcad oo diyaar u tahay dhammaanteedna aan ka sugayno gudoomiyaha inuu ogol la yiraahdo Balcadna way israacsan tahay kuma kala raaracdo waxaan kaloo codsi kaloo gaar u jeedinaa degmadu aad u horumartay in degmada Balcad ee jaamacad u qalanto in laga sameeyo wax badan jiro oo qodbooyin ah intaas aan ku soo gabagabeynaa dadka reer Balcad waxaan idin leeyahay aadan ugu faraxsanahay inaan maanta xafladan madaxweynaha kala soo qayb galo waxa ay ugu dambeysay muddo xoogay Balcad dadka degan dadaan aad isu naqaano saaxiibaday aad u jeclahay way waxaan rabaa marka aadan idin salaamayaa marka ilaahay idankiis degmada wadada isku xirta gobolka Shabeellada Dhexe ee Balcadna waana la furi doonaa tartan adag oo aan ku jirnay degmada Balcad waxay ahayd degmadii aadna looga soo dhaweeyay namarti gelisay garoonkii tababar ay noo siisay dhammaan dhalinyaradii deegaanada Hirshabeelle ka kala yimidna ay si wanaagsan inta loogu soo dhaweeyay abaalkaasna waa shacabka degmada iyo maamulka aadan ka mahadcelinaa haddii alla idmo waxaa kaloo jiro sanadkan dhalinyarada fursad badan ay heleen markay noqoto sadexgalka dhalinyarada taas oo ayadana sanadkan markii ugu horeysay aan rajeynayno tartanka degmooyinka in la qabto oo tartanka kubadda cagta ee degmooyinka in la qabto si dhalinyarada isku dhexgalaan ninka mahadday joogo inuu fursad u helo dhalinyarada walaalihiisa ee degmada aadayaba inuu la ciyaaro sidoo kale degmada Balcadna inay ayadana la ciyaarto degmada Shishe ee Moqokori isdhexgal bulshasaan u kordhin haddii alla idmo sanadkan markii ugu horeysay ayadana waxaan rabnaa inaan tartanka degmooyinka la qabto waxaan ku faraxsanahay degmada Balcad quruxdeeda iyo bilicdeeda iyo horumarka ka dhacay iyo mashaariicda badan oo qaar la dhagax dhigayo qaarna xariga laga jaraayo annagoo ku astaysan inaan horumarkii aan sameynay soo bandhigno sida aan jecelnahay bilaha soo socda oo dhan waxaan mashaariic waaweyn ka fulinay isteedka Hirshabeelle oo dhan laga soo bilaabo Matabaan ilaa maanta oo aan Balcad joogno ilaa 12 degmo waxaa ka dhaqan galay wax la taaban karo waaweyn haday tahay waxbarashada dhalinyarada caafimaadka iyo maamulada waana soo bandhigi doonaa bilaadanku dhaliilaan ma aha dhaliil waa jiri kartaa laakiin waxaan ku amaananahay waa inaan sheegnaa haddii aan la sheegin anaga ayaan sheegi doono sidaan aan u soo bandhigi doonaa ayaan u mahadcelinaynaa noo suuro geliyey inaan maanta xiriga ka jarayno
mashaariic badan oo wax ku ool u ah bulshada ku nool degmada Balcad cid kasta gacan ka geysatana waa uga mahadcelinaynaa marka horese waxaan rabaa inaan ka tacsiyo dhibaatadii waqti aan saas u dheerayn ay u geysteen nimanka nabadiidka degmada Balcad ee ay qaraxyo iyo weerar isugu dareen dadkii oo hurdaayo xilli salaad subaxa ay dhibaato u geysteen dad iska shacab ah ayagoo bartilmaameed ciidan raadinayn laakiin nolosha bulshada la diriraayo ee ay qorshahoodu yahay inay qof shacaba ama qof nool ama qof cibaadaysaysa ama qof danteeda u socota inay dhibaateeyaan qorshahooda uu yahay qaraxyadii ay ka geysteen guudaan ummadda Soomaaliyeed aan uga tacsiinaa gaar ahaan reer Balcad waa uga tacsiinaa dhibaatadaas insha Allah ilaahay idinkiisna waxaan rajaynayaa dhibaatadooda inay waqti aan dheerayn naga soo afjari doonto waxaan ku ammaanayaa bulshada degmada Balcad iyo maamulka degmada runtii dadaalka ay muujiyeen iskaashiga iyo isgarab istaagga horumar kasta ee deegaan ka jiro ama degmo ka jiro ama dal ka jiro waa la iska kaashada ma iskama imaanin runtii waa ammaanayaa bulshada Balcad iyo maamulka isku duubnidooda waa ku ammaanayaa mashaariicda qiimiga badan ee maanta xiriga laga jarayo oo wax ku oolka u ah ummaddan ku nool degmada Balcad indhihiina waxaad ku arkaysiin mashaariicdan qiimigeeda waa isbitaalkii oon ognahay in loo qaadi jiray qoftii xanuunsata ama gabadha umulayso xamar loo qaadi jiray iyadoo weliba waddadu siday maanta u dhib yarayn oo rafaha lagu qaadi jiray waan ognahay isbitaalkaas wax badan ay ku dheerto bulshadu runtii cid kasta gacan ka geysata waa ku ammaanayaa waxaa kaloo ku ammaanayaa isgoolaadka halkan laga hirgeliyey cid kasta gacan ka geysatana runtii waa ku ammaanayaa mashaariicda ka fushay garoonkan aan maanta ku sugannahay waxaa iska kaashaday IOM iyo bulshada ku nool degmada Balcad waa ku ammaanaa runtii iskaashigaas cid kasta gacan ka geysatana runtii waa ku ammaanayaa sidoo kale gaari dabdamiso haddii dhibaata dhacdo loogu gurmado ganacsatada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan dhibkii soo gaaro loogu gurmadana sidoo kale waxaa iska kaashaday bulshada degmada Balcad iyo IOM iska kaashaday runtii waa ku ammaanaa waan uga mahadcelinayaa albiyoodii laga fuliyey degmada Balcad Islamic Relief oo gacan ka geysatay iyo bulshada iskaashaday iyadana sidoo kale aan u ammaanayaa cid kasta gacan ka geysatana sidaasaan u soo dhawaynaynaa inaan wax ku daranana diyaaran u nahay waana ku ammaanaa bulshada dadaalka iyo isku duubnida iskuulka kaleentood oo xiriga laga jaraya asagana IOM iyo bulshada iska kaashaday iyadana sidoo kaleentood runtii waa ku ammaanayaa waa wax loo baahnay baahida loo qabo bulshada inay wax baratana waad ogtihiin iskuul kaleentood ee xanaanada carruurta ah sidoo kale waxaa iska kaashaday bulshada iyo Save Children waa ku ammaanaa iyagana dadaalkaas iyo isku duubnidaas runtii reer Balcad waxaan rabaa 3 arrimood inaan ku ammaano ammaana dhowrka dalka Soomaaliya oo ogtihiin dhibaatadii iyo wixii ka dhacay iyo burburkii ka dhacay degmadii badbaadisay hantidii ummadda ayay naqatay oo warshadii Soomaaliya takase degmada Balcad ku tiilay ummaddan ayaa badbaadisay waa ku ammaana dhowrka iyo sida iyagoo isu duuban hantidii ummadda Soomaaliyeed ay u ammaan geliyeen una haayeen runtii waa ku ammaanayaa waxaa kaloo ku ammaanayaa isku duubnida horumarkan ka muuqda degmadan ay iska kaashadeen iyadoo loo kala helinna waa ku ammaanayaa waxaa kaloo ku ammaanayaa cadowgan ummadda u diiday horumarka iyo nolosha siday isula difaaceen iyadana sidoo kaleentood waa ku ammaanayaa aad iyo aad u mahadsantihiin qodobada laga dhawaajiyey waxaa ka mid ahay waddadan socoto inay Jowhar tagto ilaa iidankiis waa tegee
balcad ay hadda joogtaa jowharna waa tegay waqti aan dheerayn insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaan sidoo kale laga shaqayn doonaa dib u xurayntii dalka wejigii labaadaa la gelaa nimankaan fidnada ah ee maalin weliba go'aansaday inay ummaddan dhibaateeyaan hadday horumar tahay hadday nolol tahay ba u diiday insha allah waa laga xuraynayaa sayidka hirshabeelle iyo guud ahaan dalka soomaaliya ilaahay idankiis waxaa kaloo rabaa reer balcad idinkoo mahadsan mashaariicda qiimiga badana idiin fushay iskuduubnidiinna iyo wadajirkiinna iyo wada shaqaynta maamulka iyo bulshaday ku timide maamulkaasu maamul la soo magacaabo ahaay haddii ilaahay raalli ka naqdo gole deegaana la dhisaa waqti dhow dadaad idinku doonateena idin hogaami doono haddii ilaahay raalli ka noqdo golaha deegaankee laba faa'iiday leedahay amaba saddexay leedahay qodobka koowaad rabitaanka bulshada qof ku timida hoggaan u naqanayso qodobka labaad horumarkii qayb weynay ka qaadanaysaa oo dadka la doortay iyo dadka la magacaabay dadka deeqbixiyaasha waxay ku kalsooni badan yihiin ama ay maalgelinta ugu badan geliyaan degmooyinka doorashadu ka dhacday degmadan in dadkeedu isdoortaan rabna haddii ilaahay raalli ka noqdo guud ahaanna dalku wuxuu aaday dowlad dhiskaas iyo horu socodkaas iyo dalkaanu siduu u gaari lahay qof iyo codna qaybay ka naqanaysaa reer balcad u diyaargarooba golihii deegaanka haddii ilaahay raalli ka noqdo iyo dada idinku doorateen inuu hogaamiyo aad iyo aad aad u mahadsantihiin waqti dheeraad taagneedeen qorraxdan waxaan idin leeyahay sida mugga leh oo miisaanka leh oo aan la kala helin ee aad aniga iyo wafdiga ila socday aad noogu soo dhowayseen degmada balcad waan ka mahad celinaynaa ballantaynuna insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo guud ahaan stateka hormaro gaar ahaan reer balcadow waxaan rajaynaa mashaariic intaan ka badan waxna waan dhagax dhigaynaa waxna xirigaan ka jaraynaahe inaan mashaariic badan oon xiriga ka jarayno iyo midaan dhagax dhigaynaba idinkugu soo laalaaba doonno aad iyo aad aad u mahadsantihiin guulaysta dalka oo xura oo khawaarijta laga xureeyo iyo dowladisaan noo ballama aad iyo aad aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu